بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto mowduuca ku saabsan kaalinta ama dowrka ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku yeeran karaan horumarinta dalkooda saddex qodob baan ku soo koobi doonaa kow maxaa la yiraahdaa dhalinyaro labo muhiimadda ay dhalinyaradu leeyihiin maxay tahay saddex kaalin noocee ah ayay dhalinyaradu ka qaadan karaan mujtamacooda ama bulshada ay ku dhex nool yihiin haddaan ku hormaro midka koobaad sida dadka ka hadla umriga insaanka ay sheegaan waxa dhalinyarnimo la yiraahdaa marxaladda u dhaxaysa si qaar leeyihiin 15 sano ilaa 24 sano taas hadii aan ku dabaqno waxaan filayaa dad badan oo meesha fadhiya ka bixi lahaa laakiin waa laga raajaxsan yahay waxay leeyihiin qaar kaleeto inta u dhaxayso 20 sano ama 21 sano ka bilaabanayso ilaa 40 sano 40 sano waxaan ka dareemi karnaa sidaas waa marxaladda uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku soo saaray inta badan anbiyada waxa lagu tilmaamaa waqtiga qofka aqligiisa iyo garaadkiisa uu kaamil noqdo taas ayaan ku soconaynaa haddaan sii qeexo maxaa la yiraahdaa dhalinyaro waxa la yiraahdaa dhalinyaro qof da'yar xoog leh hankiisu sareeyo awoodna u leh inuu wax bedelo waxaan niri qof xoog leh oo da'yar baa dhalinyaro loo yaqaanaa waxaan ka fahmaynaa halkaas xadiidka oo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay al-mu'minu al-qawiyyu khayr wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khayr qofka muslimka waxa looga baahan yahay quwwatul jismi iyo quwwatul iimaan in labaduba laga helo hadii qofka jismi ahaantiisana uu yahay daciif xagga iimaankana uu yahay daciif wax walba soo haweysanayo haddaan sii wadna qeexitaanka waa qof awood leh hankiisu sareeyo awoodna u leh inuu wax bedelo wax hogaamiyo soo kordhiyo fikir cusub sidoo kale uu sugaayo dalkiisa ahna awoodda ugu muhiimsan ee uu leeyahay dalkiisa haddii aan qeexitaanka intaas aan uga baxno kaalinta ama muhiimadda ay dhalinyaradu u leedahay bulshada sida dhabta ah waxay tahay dal kasto waxa laga fiiriyaa ama dad kasto oo goob degan sida ay tahay dhalinyaradooda haddii ay dhalinyaradoodu wanaagsan tahay maskax fiican tahay hankoodu uu sareeyo waxa loo rajeeyaa inay noqdaan dad guuleysto haddii laakiin ay dhalinyaradoodu yihiin kuwo taag daran fikirkoodu uu hooseeyo waxyaabo badan baa ka hadlaabayo haddaan soo qaadano tusaalooyin ku saabsan in dhalinyaradu ay wax bedeli karaan waxa koobaad oo looga baahan yahay qofka dhalinyarada ah si uu wax u bedelo waa in horta uu yahay qof hadaf iyo hiigsi leh qof yool leh uusan u noolaan si caadi ah waxaan ka wadaa qofku inuu iska soo tooso iska cuno iska cabo iska noolaado sidaas waa si caadi ah baa lagu tilmaami karaa qofku waa inuu ku noolaado yool iyo hadaf iyo hiigsi inuu meel hiigsanayo sidoo kale waa inuu yahay qof cilmi iyo aqoon leh rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay kolkii nabiyullaahi aadam alayhi salaam koonkan la keenayay intaan la abuurin ka hor وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ورب سبحانه وتعالى أشياء ملائكة إن كان وكان دون عيد خليف أو نقطة وهي ملائكة مركز شيئين ويدهن معيد فسهادسه بعد كنيسة كدي بكل كي ورب سبحانه وتعالى أبوري بملائكة وحاله ويدي وحيابه أنت لك يعني باللي المجاعش هو شيء ويقوم وين ورب سبحانه وتعالى مرك أسماء وحياباس وبري آدم عليه السلام ولا ويدي وكجوابي وحو ملائكتي ماشي وقوليستي علمي يا أقونتي وإلهي سبحانه وتعالى سي وحامرك ماشي عشان كفهمنا إن قفك أصلاً علم لهين أصلاً وحو وبدلي كرن وإن ورت علم اللي هي أقون واللي هي وحكو بدله أصحاب الكهف وكلادان فيرنو وحي أهاين أمد قوم دم بدلي go'aan ku gaaray in dawlad gaala ah mujtamac gaala ah ay ka hor imaadaan una sheegaan xaqa
iyo meesha ay ka jirto diinta wuxuu rabbi subhanahu wa ta'ala ku tilmaamayaa inay dhalinyaro ahaayeen dadkaas innahum fityatun aamanu bi rabbin fityah wa bimacna dhalinyaro waxay ahaayeen dhalinyaro rabbigood rumeeyay wuxuu rabbi subhanahu wa ta'ala tilmaamayaa inuu u ziyaadiyo hanuun haddii nabiyullaahi ibraahim oo kale aan fiirino wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah wuxuu ka hor imaaday mujtamac uu ku noolaa dacwadii buu gaarsiiyay inuu wax bedelo go'aan ku gaaray aabihii oo ugu dhawaa baa ka hor imaaday oo uu ku leeyahay ma ilaahiyadeedii baad yaad ibraahimow aad nacaysaa waa tii uu sameeyey asnaamtii ay caabudayeen intuu ka burburiyey si caqligooda uu u tusiyo iyo maangaabnimadooda wuxuu ku yiri kan ugu weyn weydiiya kadib waxay dhaheen samicnaa fatan yadhkuruhum yuqaalu lahu ibraahim waxa halkaas ka fahmeynaa xilliga nabiyullaahi ibraahim uu bilaabay dacwada oo go'aan uu ku gaaray inuu wax bedelo mujtamacan uu u bedelo dhanka wanaagsan inuu ahaa nin dhalinyaro ah haddaan u soo daadegna saxaabadii rag dhalinyaro ah bay ahaayeen kolka islaamayeen ay diinta soo galayeen ay nabigeena u gargaarayeen rag dhalinyaro ah bay ahaayeen saxaabiga ugu weynaa khulafada u horeeyay Sidiiq waxa uu jiray markii uu islaamayay 37 sano waxaan ka fahmaynaa halkaas inuu ahaa nin dhalinyaro ah oo sinu da'di ay ku baxaysay uusan gaarin wali sidoo kale Umar wuxuu jiray 26 Uthman wuxuu jiray 20 Ali wuxuu jiray 12 Sa'd bin Abi Waqqas 17 dhammaan saxaabada daan fiirino sidaas bay ahaayeen haddaan u soo daadegno dadka mujtamaca Soomaalida kamid ah ee wax badan bedelay Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan markii uu dadaalayay ee halganka uu ku jiray ee gumeystaa uu ka hortagay waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah sidoo kale SYL 13 nin oo dhalinyaro ah bay ahaayeen oo dadaal galiyay sidii mujtamaca ay ku dhaxnoolaayeen ay wax ugu qaban lahaayeen ay gumeystaa uga hortagi lahaayeen waxa weey markii su'aasha taala meesha annaga maanta saan ognahay dalkeena marxalad adag buu iyo maraya ka dhalinyaro ahaan SYL waqtiga ay joogeen fursado badan oo aysan haysanin baan hadda haysanaa waxyaabo badan oo inay ku xiriiraan aysan suurtagal ugu ahayn ba hadda maanta awood waxaan u leenahay midka Muqdisho joogo iyo midka halkaan joogo iyo midka meesha u dambaysa joogo inay fikrad saacad ay ku wadaagaan ama waqti kooban waxa marka muhiim ah oo inaan ku wada fikirno go'aan u gaarno inaan hankeena kor u qaadno kuna talagalno maanta dalkeena sida aan u badbaadin lahayn marxalad adag buu marayaa waa dal Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax walba uu dhameystiray laakiin dadkiisi aad moodo inay isku fahmi laayeen in ayaga ay wada noolaadaan haddaad fiirsad dad halkaan aan ku noolnahay Sheekh Bamandooytu wuxuu lahaa magaalada Kampala inta ku nool iyo inta u soo shaqo tagto iyo dalkii Soomaaliya inta maanta ku hartay kee badan su'aal meesha taalo way dalkii dad maanta fiirsad ku safarto magaalooyinka bas dad ay ku nool yihiin haddii aad Muqdisho intaad ka soo baxdo aad gaalkacay soo aado magaalooyinka u dhaxeeyo dhulkii baadiyaha oo dhan wax jooga ma leh taas macnaheedu waxay tahay dadkii Soomaalida ahaa in dalkooda ay ka soo tageen waxa marka loo baahan yahay in annagii hadda waan ka soo tagnay in dalkii sida aan ugu laaban lahayn aan dalkeen annaga u dhisan lahayn oo meesha maanta loo qulqulayo ama loo socdo dad ba iskale oo dhistay annaga keenna sida aan ku dhisan lahayn inaan falankeeda qabanno haddii aan dheereeyay laga raali ahaado intaas ku soo gaabinaya. Assalaamu calaykum.